sidaad la socotaanba in dhaweyto waxaad baraha bulshada iyo youtube-yada lagu arkayay dad ka soo jeeda bulshaweynta beelaha Gabooye oo xafiisyadooda ku qortay oo taageera xisbiga wadani oo xafiisyadooda ku qortay xafiiska beelaha Gabooye taasoo ay milgaha iyo maamuuska beesha ay meel kaga dhaceen shakhsiyaadka ficilada caynka ay ku kacay lama arag xisbi mucaarida ama muxaafida oo beelbeel dadka intuu kala qaado oo yiraahdo beel hebel waxaan u furay xafiis beel hebelna waxaan u furay xafiis haddana boodar ku qora waa la garanayaa sida xafiisyada loo furo degma laga furaa xaafad baa laga furaa maxay hayday xarun bay leedahay xarun dhexe iyo xarun guud laguma qoro waxay u gaartahay reer hebel iyo reer caynkaasa shakhsiyaadka caynkaa sameynaya ficilada caynkaa ku qoraya waa shakhsiyaad interes iyaga gudahooga wax kaga raadinaya xisbiga wadanina wuxuu ku dhaqmaya iyo fuquuqu reerka ku hayaana imikay sii caddahay tallaabadaa haddii aanay hore imika ka soo jawaabin sababtay ugu qoreen tallaabo sharciga waafaqsan baanu la qaadi doona maxkamad baanu ku tiigsan doonaa beesha annagaa matalna beesha annaga waa aqoonyahana beesha Gabooye annaga ilaalinana wax kastoo ku imanaya oo sumcaddooda waxyeelaya waxaa jira shakhsiyaad intay gobollada tegeen maxay hayday beeshii Gabooye oon dhammayn idhaahda waxaan nahay beeshii Gabooye xisbiga wadani ku soo biirtay shakhsiyaad sheegta suldaan guud inay yihiin waa la garanayaa beesha Gabooye cidda u suldaanka guudka shakhsiga dambe idhaahda suldaan guud baan ahay aanay salaadiinta Gabooye dhammi aanay u dooran ama aanay u iclaamin ee isugu magacaabana isagana maxkamad baa la tiigsanaya waananu sharcigaana la maraynaa waa shakhsiyaadka xisbiga wadani maanta ku jira waa la garanayaa beeshan waxay yeeleen way ka calaamadsan yihiin wax ay taraan daaye wax xisaabo badan baa ku maqan waxa ku maqan iskuulkii Maryam Mursal waa la garanayaa halku maray cidda ka mas'uulahaydna waa cidda wadani maanta ku jirta tusaale kaasa ugu filan waxa ku maqan iskuulkii Cumar Dhuule waxa ku maqan xaq badan oo beeshani lahaayeen beesha ku soo qaadeen oo ilaa imika aan lahayn waanu u soo soconaa gobolada kama maqnin waanu u maqannaa waanu u soo soconaa Gabiley waanu u soo soconaa Boorame waanu u soo soconaa Burco waanu u soo soconaa Ceerigaabo waanu u soo soconaa Berbera waxaanu la soo soconaa mabda runa waxaanu la soo soconaa waxqabad runa waxaanu la soo soconaa siyaasad hufan oo aan been lahayn oo aan danaysi lahayn waxaanu ugu maqannahay wax dantooda waxaan fici doonaan ugu maqannahay waxaan ugu maqannahay siyaasad ay maanta kula xisaabtami karaan musharaxa Muuse Biixi Cabdi waxay kula gorgortami karaan ayaanu ugu maqannahay uguna maqnaan doonaa mar walba anagu daacad iyo hiil baan la hor istaagi doonaa waxaan xasuustaa xisbiga wadani maanta ninka gudoomiyaha ka waqtigii 2006 ardaydii jaamacadaha ka soo baxay baan jaamacada iskuulada dhexe ka soo baxay baan dugsiyada sare waxaan weynay scholarship jaamacadda Hargeysa laba arday bay naga qaadatay maxay hayday xisbiga mucaaridka ee ucud laba arday buu naga qaatay waxa baarlamaanku wuxuu bixin jiray scholarshipyo waxaan u tagnay gudoomiyaha baarlamaanka imikana musharax madaxweyne xisbiga wadani waxaan ku nidhi saddex arday baan ahayn haddaan been ka sheegayo ilaahay waa iga sareeya waxaan ku nidhi gudoomiye Axmed Kaysan ninkii la oran jiray ee xogayaa guurtida hore ahaa baan noo geeyay isu galaasaan ahayn waxaan ku nidhi waxaanu nahay arday ka soo jeeda dadka dhaqaalana ma hayno jaamacadda walaa semester-ka ugu horeeya baanu hayn intixaamaana la dhaafay scholarship-kii intii lagu talagalay ma aha waanu ka badnaanay waanu weynay scholarship-ka baarlamaanka nagu dar gudoomiye wuxuu yiraahdaa meeshan anigu waxba kuma hayee iska dhaqaaqa isagoo aanu ognahay intuu qoray ee baarlamaanku ka bixiyay sanad bay dhacday inaan dib u hadhno weyno Axmed Kaysan yiri war xaq bay u leeyihiin ku dar war lagu dari maayo cid ka lacag badan ma jirto way shaqaystaana iska bixiyaan buur kiiba maanta kule wasiir ugu horeeyaan magacaabayna wax balaqaad ugu horeeyaan siinayna been ha u sheegi ban leeyahay umada waa dadka cidla kaga dhaqaaqday waa dadka jaamacadoodii inta dadkii ku xigay qorteed qor weyday adeer meeshan maanta xisbiga wadani wax uu hayo umada iyo wuxuu ugu filayahay ma jirto inta kula joogtaana shakhsiyaadka ay reerka ka qorayeen waa la garanaya beel qura yaanay ku qaadan beelaha Gabooye 9 jilib ka kooban intay beel kula socoto magaca Gabooye ma isticmaali karaan shakhsiyaadka ku isticmaala jilib uu isagu ka soo jeedo intuu xisbiga ku soo daray iraada beel Gabooye baanu keenay maxkamad baanu la tiigsan doonaa
welibana waanu u soo soconaa dadkayga waxqabad fiican baanaanu ugu soo soconnaa tartankuna wayna dhex yaalaaye wixii aynu kala qaadnay calafkeen baan isku leenay waana la yaqaan daacad baan dadka ugu shaqaynaa waxna ma meel marsanno siday tahay baanaanu ugu shaqaynana xafiisadii imikaanu ka furaynaa Hargeysa Gabiley ka furaynaa Burco ka soo furaynaa tartanku wayna dhex yaalaa wabilaahi tawfiiq wasalaam